Somali. I think all Bangladeshi. I think I will be a Somali. Yeah. So you just enjoy this moment for you, your newly elected president, and already I've been welcomed him through my Facebook account. I think you have all of you wishes, and Mahasanit for these things. magaaladan waa ku dayacantii horta ku dhaha magaalada xamar Allah khari waxa ma idinka qarnaayo different ways wax lagu helaa magaaladan doonooyin waa joogan adii taariiba ku walta baraad u gooy taariibkan adina waa ku dayacantaa ciyaari wax ma daawata baraada cawada booshi meelaha saadina siyaar baraada oradii fiiri two ways da wax ku yeeshanaka wuu xitaa wax ku helayno ma fahant waxaan naga dhacin baraada runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan xafladda ka soo qayb galnaa caawa taasoo aan ku soo dhaweynayno madaxweynaheena qiimaha iyo qaayaha badan runtii dawladnimo marka la dhahayo waa hal dalad oo kale dhamaanteen maanta hal mabda iyo hal waxa midaysay oo kaliya hal toobi kaasoo ah inaan soo dhaweyno madaxweynaheena aan ku qanacsanahay dhamaana waxaan ahnaa dhalinyarada wadanka sida aad soo tihiin wadan walba oo horumar gaar waxa gaarsiiyay dhalinyaradiisa maanta waxaan ahnay dadkii jaanka ku sameeyay lahay wadankeena qof walba marka waxa looga baahan yahay kaalinta uu doorka ka ciyaar lahay wadankiisa iyo waxa uu qaban lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sanadu markay ahayd 1962 wuxuu ku soo barbaaray isla caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wuxuu wax ku bartay waxbarashadiisa aasaasiga ahaydna ugu baxay isla caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ku hareereysna intaas kadib sanadii 2010kii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka noqday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed 2012 ayaa wali ahaa mid nagu jiro qulubteena laakiin alxamdulillah natiijo ka duwan kaas ayaa soo baxday 8 Febraayo waxay ahayd habeenkii Soomaali weyn ee dhalatay war ma isku raacsanayn Soomaali weyn dhalatay war ma isku raacsanayn Soomaali weyn habeenkaas dhalatay madaxweynaha hal daqiiqo aan u istaagna hadaan isku مستعمر قوشي سوي يوم مغعلان مغنقل يتوك سوي يوم مسكينها ماذو يا عدان مركاسيكم معمولان ماذو يا عدان مركاسيكم معمولان مولوغ يذات الشي مركاس بلغا وتا دونتي ايدل مدحوينه شعبka dhigtay duloobe labaabo waan ku damqanayaa idinka idin la hadlayaa shacabo dhaqankiyo dadnimadiyo dubka igu kaayaal kuma diidi karaayo waxa tahay dadkeygii erayga doolka ah martidayda doorka daansho socodka maandhow dardaariyo digniintaadii weeye waxaan kugu daray taas dalka hoos u eeg madaxweyne ha ku dagin maantade daryeel iyo waxqabad si waxaan kugu darayaa waxaad tahay nin loo diray ummad aan dadnimo iyo dastuur iyo ku garaadsan darajo siday doonto yeeshee u dulqaada madaxweyne ummadaada
nin kalaa jira dhegaysaninka baashu waa badan tahay xarfaan badan laga qabta waxaa jooga ninkii wiisha gargaraacay maqasheen haddii ayan dabaylurin awood male naftaydu yeeyahay markaan uurka hooyada nacawdiisa udugale kii igu ambariyo harligaygo madaxweynuhu waxa inaga fariina oo si diblomaasiya waxyaalaha ay tabayaan waxa kamid ah arday gaaraysa 1200 iyo googo aanan haysan nidaam waxyaalo badan oo la taaban kara jira waxaan rajaynayaa in ay dawladda cusub oo madaxweynaha soo dooran doono in ay gelin doonto nidaamkeeda arrimaha dibadda ee siyaasadda in ay ku dari doonto ardayda Bangladesh joogta in ay nidaam yeeshaan waana rajaynaynaa insha Allah talabaad rabo inaan focus ka saarayo waxa weeyaan aqligeena waxaan rabaa aqliga Soomaaliyeed runtii markaan isku sheegno uma bisla dawladnimo عقلك الصوماليين وما بسنا لحي لبعض سنة نسعوني صدروا سنة واحد دولة وإك أن هيسن وين حقيقة مركل الشيء مركل كحروني جميسته عريقة كسر دولة مركل واحد ربنا عدسنا النهضان وأقوياء هنا هاي عقلك الصوماليين عقلك سكر لوقا ورنتي عقلك الصوماليين كر لوقا مركل ليه هاي عقلك الصوماليين كر مركل وقامه وثبتكوا هليان لحشة الله بحدود هليان وعن هليان إمنيجا وكذا عقلك الصوماليين وكر وقع عاودن waxaan raadinayay heestii ahayd si kastaba ha noqoto abu kareesta noomu qaadin anna Soomaan diyaar dib ka qaad doon la kajirayna saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha iyo dawladaba waxaanu ka rajaynaynaa oo Ilaahay uga baryaynaa inay ugu suurta gasho sida ugu fiican dawladnimada aynu wada sugayno ardayda Bangladesh waxa weeye waa hawl cusub oo imika ay bilaabeen in dawladaha iyo wax walba dalku soo kordhay meeshan ka qabtaan waxaan sidoo kale caawo dhan aynu qulubteena ka guuxay inaan iyaguna u hambalyeeno madaxweynaha maanta madaxdii ka horeysay madaxweyne ma dhicin Afrika waxaanu ka nimid qaaradda Afrika oo lagu yaqaano madaxnimo jacayl waxa Ilaahay mahadiya madaxweynihii xilka dhiibay isagoo aan gelin stage-kii saddexaad doorashada wuxuu si sharaf leh u muujiyay Soomaaliya inay ku horumarsan tahay wadamada kale Oy,